Salaama ku soo dhawaada YouTube channelka Daraama Soomaali. Maanta iyo musalsal cusub oo lagu magacaabo Hiding Love. Tiriishadeena waxaa lagu magacaabaa Sanji, waxayna arkaysaa baabuur kaasoo ku jira alaab iyadoo fiirinaysa waxaa gadaal ugu imaanaya tooreen. Waxaana galeynaa xasuus markay yareyd 3 sano ka hor maalin iyadoo cashirka la wada qaadanayo fasalka lagu jiro ay ka mashquushay cashirka. Macalinkan wuxuu dhahay waalidkaaga bariikeen asxaabteedu waxay rabeen inay isku raacaan maktabadda, laakiinse iyada maalinkeed ma saxnin, saas awgeed guriga ay isku soo aaday. Guriga markay timid waxay ogaatay in uu walaalkeed imaaday, inay rabtay inuu imaado. Kabacdi waxay arkaysaa tooreen, waxay u malaynaysaa walaalkeed, waxayna dhahaysaa qaliin ma isku samee. Walaalkeedna midaas uu ka xanaaqa, laakiin iyada way is-oosinaysaa. Hooyadeed ayayna u sheegaysaa walaalkeedna sidii ayaa lagu ciqaabaya. Waxaas la sheekaysanaya iyada iyo atooraheena Dandayshu. Dhanka xiga subaxii intaysan arkin atooraheena waxaa arkaynaa subaxii hore intaas inay walaalkeed ay guurinaysay hostelka ayna ka codsatay inay guuriso. Ugu dambeyn walaalkeed wuu ka ogolaanaya. bacdul school markay ka imaato waxay soo aadaysaa hostelka walaalkeed uu ku noolaa. Waxay arkaysaa baabuurka aabeed, laakiin waxaa saarnaa alaabta Dandayshu atooreen ah. Kabacdi isla soo qaadayaan, waxay isla soo galayaan qolkii iyada walaalkeed iyo atooreen Dandayshu isla degan yihiin. Asxaabtiisa kale waxay isbaranayaan asxaabta walaalkeed, waxayna fiirinaysaa alaabta atooreen Dandayshu. Atooreen wuxuu leeyahay waxaa aaday shaqada part time-ka. Tiriishadan wuxuu dhahay haddaa jeceshahay qaado boonbalaha, laakiin iyada waxay meesha u dayaysaa buugeed kuweeshanka. Habeenkii markuu shaqada kasoo laabto walaalka tiriishada walaalkeed wuxuu dhahay maxaa isku ilaawdeen tiriishada. Markaas walaasheed maxaa isku ilaawdeen sidan wuxuu dhahay wax ma ku ilaawin, laakiin buugeed ay meesha aan u tagto dhahay. Buugeed waxay dhahaysaa iga soo shaqeey, laakiin asu wuxuu dhahay qalad waa inaa kaa shaqeey, laakiin waa kugu caawinaa. Subaxii waqti xiyuu soo kacay saacada mobilka saarnay. Subaxii markii la gaaro way isa soo diyaarinaysaa, waxayna soo aadaysaa meesha basaska laga raaco. Way imaanaysaa, laakiin atooraha meeshay ka imaanaysaa. Waxaana galeynaa xasuus 3 sano ka hor maalinkaas waxay ku ballamay atooraha inuu iyo walaalkeed u matalo oo iskuulka u imaan. Macalinkan uu fasax qaaday, laakiin wuu ku soo dahay, laakiin wuu imaanaa. Ugu dambeyn waxay isku soo raacayaan macalinka. Haddana xusuusta ka soo laabanayna waxaa arkayna atooraha inuu imaaday uuna kala shaqeynayo xisaabtii ku adkeed. Wuxuuna kafeteeda agtiisa fadhiisnaa, wuxuuna u soo gadaa quraac. Haddana waxaa arkayna xasuus 3 sano ka hor waxay soo aadayaan macalinka uu imaanaa, wuxuuna iska dhigaa inuu yahay walaalkeeda ka weyn. Macalinkan wuxuu u sheegaya waxyaabo iyada ku xuntaa waxbarashada ku fiican tahay, laakiin cashirka marka loo qaadanayo way ka mashquulsantahay. laakiin inuu macalinka way raaligelinaysaa. Ugu dambeyn waxaa kasoo laabanayna xusuubta wuxuu keenaa iskuulkeeda wuuna macsalaameynaa. Haddana waxay is arkayaan asxaabteeda way sheekaysanayaan, waxayna soo aadaysaa galaaska. Habeenkii ayaa la gaaraa. iyadii hooyadeed waxay dhahayaan aabeed waxaa aadaynaa aroos mana raacaysaa isbuucan, iyadana way diidaysaa. Ugu dambeyn hooyadeed waxay dhahayaan walaalkaaga subaxii kula jooga hostelka wuu kasoo laabanaya. ayay dhahay subaxii dambe wuxuu dhahaa soo bax quraaca isku raacayna maqaaxi. iyadana way diidaysaa, laakiin waxay maqlaysaa walaalkeeda mobil ku hadlayo oo dhahaysa asxaabtii waa is wada raacayna. Markaas waxay dhahaysaa waa ku raaca, waxayna is wada raacayaan. waxayna imaanayaan maqaaxida, waxayna hore wadada ugu soo marayaan atooreen Dandayshu, wayna soo wada raacayaan dhammaantood. waxayna soo wada aadayaan maqaaxida. markii ugu dambeyn ay imaanaan walaalkeed wuxuu dhahaa meeshaan baaki ma ahan, orod sii xaro baakina soo gelina. laakiin iyada waxay dhahaysaa kula jooga wuu diidaa, laakiin ugu dambeyn way iska soo xaroonaysaa. waa lasoo wada quraacana, waxayna soo aadayaan meel lagu baashaalo. tiriishada boonbalo inay soo baxsatay rabta, laakiin ma aqaan sida u soo bixinaysa, laakiin atooraha u soo saarayo. aadeen ugu farxaysaa midaas, wayna soo wada raacayaan. subaxii dambe waxaa arkaynaa iyada saaxiibteeda, waxayna isku soo raacayaan mid ka mid ah saaxiibadood oo dhalashadiis ah. intaysan soo aadin waxay imaanayaan kafeteria atooreena ka shaqeeyo, laakiin wuxuu dhahaa lacagay siinaysaa mamacaanka, laakiin wuu diidaa. laakiin mamacaan uu siinaa anaa kuu iibiyo dhah. iyagoo mamacaankood cabaaya waxaa imaanayaan dadkay sugaya tiriishadii saaxiibteed. way soo wada raacayaan, waxayna soo aadayaan xafladda dhalashada wiilkan intay soo bixin ka hor. laakiin wiilkan wuxuu dhahaa walaal maxaa idinka taajiriin ma ahayn, walaalkan maxaa inta ugu shaqeynaa. laakiin iyada warkaas iska xidhay dhehaysa way usoo laabanaysaa atooraha. waxayna u malaynaysaa inuu lacag la-aan hayso, maadaama ay maqashay managerka isoo isla hadlaya. lacagay meesha u saaraysaa, way ka cararaysaa. atoorahan wuu fiirinaa, wuuna iska qoslaa, way waalanta oo dhahaa xafladda dhalashada la gaaraa. iyo dhan waxay bilaabeen inay u hambaliyeeyaan. wuxuuna rabaa inuu tiriishada meeshaan jecel u sheegto. tiriishada waxay dhahaysaa waxaa u baahnay inaa guriga aad, wayna soo cararaysaa. laakiin tiriishada saaxiibteed aad ay u xumaanaysaa. wiilkan wuxuu dhahaa idinka sii jara keega, ana iyada sii raaca. iyo dambe soo raaca, laakiin atooraha wuxuu arkaa wiilka gabarta tiriishada la taagan sina uu imaanaa, laakiin wuu cabsanaa. wiilka wuuna cararaa.
sin lacagteeda u celina wuxuuna dhahay waxbarashada diiradda saaro jecel ha ku mashquulin waxay dhahaysaa waxaas ani xitaa ma dhihin waxbarashada ku mashquula maalinkii dambe arkeenaa tiriishada saaxiibteedna way ka xanaaqsaneyd wayna iska iltiraysaa maalinkaas oo dhan tiriishadna way la hadlaysaa laakiin si ma u jawaabayso macalinkan wuxuu dhahaa waxaa kugu daraa tartanka bootinka iyo waxay dhahaysaa jilbaha liyahay waxay dhahaa waa lagu daraa ugu dambe iyadana way ogolaanaysaa saaxiibteedna way iska iltiraysaa tiriishadna ay la hadashay rabta laakiin midaas way ka xanaaqan waxaa la gaaraa maalinkii tartanka waxaa bilaabanaya wiilasha qaybtood iyo orodka taageerayaashana waxay u dhiirigelinayaan laakiin ugu dambe waxaa guuleysanaya tooraha waxaa guuleysanaya tiriishada wiilka jeclaa iyo sin wuxuu dhahaa hadda la iskadoosiin rabaa koobka idin waxay dhaheen nasiib wacan iyo waxaa bilaabanaysa haddana qaybta gabdhaha tooraha madaxuu koofiyad u gelinaya indhaha iskaga ceeli qoraxda oo dhaha meesha cabaar dhul baashaar waxaa bilaabanaysa tiriishada tookadeeda lasoo gaaraya iyo bootinka laakiinse iyadoo ordaysa ku guuleysanayso meesha dhaawac kusoo gaarayo waxaana soo qaadaya tooraheena aadaan loo naxaa waa lasoo wadaa waxaana la keenaa meesha dhaawaca loo daya ardayda wax ku gaareen toorahan wuxuu bilaabaa inuu dhaawaca ka dayo walaalkeedna wuxuu bilaabaa inuu usoo gado biyo iyo waxaas markii ugu dambeyn dhaawaca laga dhayo walaalkeedna uu keena biyaha way wada cabaayaan wuxuuna usoo wadaa guriga toorahan wuxuu arkaa gabar kale dhaawacanta tiriishadana waxay ogaanaysaa waxay dhahaysaa keligii anima ii diiran in dadka dhan usan ugu diiran yahay midaasna kastoo aad ugu murjinaysaa maadaama kastoo fiilan ay u haysa maalinkii dambe waxaa la gaaraya maalinka kale ee iskuulka sida caadadeeda tiriishada saaxiibteed way ka xanaaqsaneyd laakiin iyadoo walaalkeed la hadlaysa waxaa la adaan daashuwa kusoo wadaa istiyaari iyadoo istiyaarinaysa waxay arkaysaa saaxiibteeda usoo laabto waxay dhahaysaa soo bax meel isku raacina iyadana way ogaanaysaa atoorahan iskuulka imaana waxaa la lahaa ma joogaan ardayda sin wuxuu bilaabaa inuu raadiyo tiriishada iyo saaxiibteed waxay isku soo raacayaan meela waxay dhahaysaa sumarmarkada wax kasoo gadanaa laakiin saaxiibta waxay u wadaa meel kalo waxayna dhahaysaa meesha ay raaciyeen waxay dhahaysaa meel luu qaamo halis waa ma galeen laakiin iyadu way galaysaa tiriishada saaxiibteed in wuxuu bilaabaysaa inay ka daba ordo tooreen sidoo kale waxaa loosoo tilmaama meeshay aadeen waxaa arkaynaa tiriishada saaxiibteed oo meesha looga hanjabayo oo lacag keen la dhahay gaangistarada iskuulka ay heleen iyadana waxay dhahaysaa saaxiibteeda ninkan lacagta ka qaadanaya waxayna bilaabaan boorsada yariista ay jeceshay inay ka qaataan waxay dhahaan beri saaca camal intaa iskugu imaan lacag idinkoo iyo wadimeen iska baxaya tiriishada midaas aad ugu xanuunsanaysa buwaagteeda aruursanaysa waxayna dhahaysaa waaba ka shakiya maalmahan dhan iska indhatiraysa silama filaane waxay ugula hadashay waa ka shakiya ay soo dabagalanay iyadoo sii socod waxay arkaysaa atooreheena arkaayo uu dambe waa u imaanaa way oonaysaa laakiin hawuu siinaa markuu habsiiyo wuu soo wadaa meel kafteeriyo keena wuxuuna usoo gadaa biyo wuxuuna ka wareysanaa waxyaabihii dhacay wuxuuna xagga ka ogaanay inay tiriishada ay soo weerareen kuwa gaangistara oo iskuulka oo hay ugu laakiinse wuxuu dhaha u sheeg wuxuu kugu dhacay maanta guriga dadka jooga ka qarinayay dhahaysaa wuxuuna kusoo qaadaya baaskiil wuxuuna keenayaa gurigeeda habeenkii markii la gaaro wuxuuna dhahayaa lacagtii wuxuuna siinayaa lacagtii maanta ay ka qaateen kuwii gaangistarka ahaayeen iyaduna way ka qaadanaysaa wayna ku farxaysaa waxayna sii eegaysaa tooraha isagoo sii socda guriga soo galaysaa waxayna bilaabaysaa inay soo xasuusato waxyaabihii uu sameeyey ee quruxda badnaa iyo xasuusaheedii maadaama tooraha kastoo yar ee fiilan u qaaday maalinkii xigay waxay arkaysaa walaalkeed iyo saaxiibadiisa iskuulka agtiisa ku sugaan waxayna dhahayaan soo bax meeshii shalay kugu baliyamay aadina iyaduna waxay dhahaysaa iska daaya ma rabnay laakiin way ka diidayaan wayna wadayaan waxaa ogaaneynaa waxay dhici doona insha allah part 2 la socda subscribe to my YouTube channel bye